السلام عليكم صاحبada ku xiran saasuban ku soo dhawaada qiso lagu cibri qaato waxa jiray hooyo hantiile ahayd oo dhashay 3 caruur ah saddexda caruur aabahood waa uu geeriyooday hooyada waxay ku soo korisay nolol aad u wanaagsan mustaqbalkoodina aad ayay u hagaajisay ilmaheedii dhammaan wax ayay bartay ilaa heer jaamacadeed kadibna waa ay u guurisay saddexdoodiba waxaana ay siisay guryo ay degaan hooyadii waxay ku tiri qof waliba ha u guuro gurigiisa hana dego cilmigii ay soo bartay hooyadeed waa ay ku faa'iideen waxaana ay heleen shaqo ku filan nolol maalmeedkoodii hooyadii waxay ku tiri hadda waa isku filan tihiin gurihiina u guura noloshiina kaafiya waa ay guureen hooyadii waxa ay doontay inay imtixaanto caruurteedii ayna ogaato midkii baari u ah iyo midkii kale waxay u martisay kii u weynaa guriga waxaana ay tagtay gurigii iyada oo isla joogaan wiilkii ay dhashay iyo xaaskiisii waxaana ay ku tiri oon ayaa ay haya ee ikan biyihii ayaa loo keenay qaar ayay ka cabtay intii soo hartayna waxay ku daadisay sariirtii waxay u wacday xaaskii uu qabay wiilkeedii waxaana ay ku tiri aniga waxaan ahay qof da' sariirtiina waa aan ka hadleeyay oo waxa iga faktay kaadi sariirta hadda waa nijaaso ee dhaqa gabadhaydii waan ku duceynayaa gabadhii hooyadii aad ay u canaanatay waxaana ay ku canaanatay wiilkeedii waxaana ay ku tiri adiga ayaa haleeyay sariirta ee ii hagaaji sariirteedii hooyadii waxay hagaajisay sariirtii wiilkeedina indhaha ayuu ka fiirinayay kamana uusan celin xaaskiisii oo canaananaysa hooyadiisa waa ay ka soo tagtay waxay u soo martisay haddana wiilkii ku xigay waxaana ay samaysay isla sidii waxaana ay ku tiri ikan biyihii markii loo keenay qaar ayay cabtay qaarkii kalena waxay ku daadisay sariirtii waxaana ay ku tiri sariirtii waa aan ka haleeyay ee hagaajiso gabadhaydii waan ku duceynayaa gabadhii aad ayay u xanaaqday waana ay canaanatay hooyadii waxaana ay ku tiri hadda kadib ima imaan kartid sababtoo ah waxaad iga halaysay sariirteydii waana in aan tuuraa go'i aad halaysay iyo joodarigii qashinka ayaynu ku dartay joodarigii iyo go'i hooyadii aad ayay u calool xumaatay wiilkeediina sidoo kale kama uusan celin hooyadiis oo sidaa hortiisa lagu bahdilaayo hooyadii aad ayay u calool xumaatay waana ay soo baxday waxaana ay soo aaday wiilkii saddexaad gurigiisa waana ay timid waxaana ay samaysay isla sidii oo waxa ay ku tiri ikan biyo aan cabo biyihii ayaa loo keenay qaar waa ay cabtay qaarna waxay ku daadisay sariirtii waxaana ay u wacday wiilkeedii iyo xaaskii uu qabay waxaana ay ku tiri gabadhaydii aniga waxaan ahay qof da' kaadidan ma celin karo sariirta waa aan ka haleeyay ee samayso waan ku duceynayaa gabadhii waxay ku tiri hooyo macaan aniga ayaa hagaajinaya dhib ma leh dharkana iska bedel waxaana ay u keentay dhar cusub waxay ku tiri maama dharkan gasho waxaana ay tustay sariir kale ay ku nasato waxaana ay ku tiri ilaa aan kaaga hagaajinayo sariirtaas kale seexo go'i ayay hagaajisay joodarigiina sidoo kale waa ay hagaajisay waxaana ay ku tiri hooyo keligaa ma noolaan kartid ee anaga nala joog aniga ayaa kuu qabanaya wax walba waa doontid waxaana kuu xanaanayn doonaa sidii aan u xanaanayn lahaa hooyadayda sababtoo ah waxaad tahay hooyadaydii labaad maamadii hantiilada ahayd farxad ayay la ilmaysay waxaana ay u duceysay wiilkeedii iyo xaaskii uu qabay hantidii ay lahaydna dhammaan waxay ku wareejisay xaaskii baarigii ahayd iyo wiilkeedii ay dhashay waxaana ay noqdeen dad tujaaro ah oo hantiilayaal ah labadii kale iyo xaasaskoodiina aad ayay u shallaayeen waxaana ay ka qoomameeyeen wixii ay ku sameeyeen hooyada mar waliba waa lagu liibaanaa oo samafalka waalidiinta sababtoo ah wiilkan baariga iyo xaaskiisa waxa ay noqdeen dad tujaaro ah waxaana ay ku heleen intaasoo lacag ah samafalka ay u sameeyeen hooyadood saaxiib yaal muuqaalka laag inoo saarsiina sheer garay kuna soo biirsaa tuuban ee subscribe inoo dheh mahadsanid